وتكونوا نبي محمد أتونكي أبهن أتونك وطرتيو وتكونوا نبي محمد kusoo dhawaada daawadayaal iyo dhageystayaal barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno Ramadaanka iyo magaalada Cadaado sida looga nool yahay inagoo barnaamijkan ku soo qaadanayna dhinacyada kala duwan ee nolosha bulshada xilliga lagu guuleeyo jira bisha Ramadaan ee magaalada Cadaado رسولكي وفيو مرضيو رسالة عليك تريد رسولكي وفيو إسلامي ماضيو حقنا أتونك كبايو اللهم صل وسلم على محمد يا حبيب الله waatahay daawadayaal iyo dhageystayaal waxa aan guda galeynaa barnaamijkii ku saabsanaa Ramadaanka iyo magaalada Cadaado waxa Ramadaanka ku soo bata ganacsiga yaryarka ah ee laamiga dhinaciisa la soo dhigo ee lagu iibiyo cabitaanada afurka loo isticmaalo haddaba waxaan hadda taaganahay waa mid kamid ah ganacsigaasi magaca Cabdinuur Ciise Cilmi Cabdinuur ka waran ganacsiga meeshan aad iskala Soomaan bismillah alxamdulillah meeshan ana iskale sidaad u jeedaahay waa ganacsatada yaryarka ah waxaan ahaa aniga gudoomiyaha ganacsatada yaryarka oo sii dhexe dowladda gobolka Galmudug waxaan ku suganahay xarunteedii businesska ah inta badan businesskana waxaan uga qayb qaatay si aan ugu dhiirigelin lahaa dhalinyaradu inay businesska aysan ka xishoonin shaqadu ay tahay aasaaska koowaad laga soo bilaabo meel hoose laguna gaaro meel sare ka warantaa maxaa iibisa Ramadaanta maxaa iibinaysaa waxaad dareemaysaa halkan xarun cawaala drink and shopping kaaga muuqata oo lagu gado cabitaanada kala duwan iyo qaybaha adeegyada ay bulshada aadka u danayaan waxaan ku soo siyaadinay bisha Ramadaan maadaama aad dareemayso in kuleyl jiro cabitaanada kala duwan sida cabitaanka shiidka ah fruitka iyo noocyadiisa kala duwan iyo ahyo nooc sida qaraho kaleeto si ay u helaan dadka Soomaali agabyo kala duwan oo ay ku qancaan markii ay afurka ku dhow yihiin galabtii oo kaleeto waa tahay ganacsiga marka si u socda Ramadaanta maxaa isbedel nooca u dhaxeeya Ramadaanta iyo xilliyada kale marka waxyaabaha gadaysid waa maasantahay Cabdi Xasan Awoowe waxaan kaaga mahad celinayaa markasta sida aad u jeceshahay inaad deegaanka horumarkiisa aad ka shaqeyso bulshada waliba ganacsatada yararka iyo dadka soo korayaan aad uga qayb qaadato dhiirigelintooda waxaan dareemayaa farqi businesskan ma jirin xilligii ay Ramadaanka uusan aysan ahayn hadduu jirana wuu yaraa laakiin hadda waxaa ka dareemaysaa koror markaad magaalada dhex qaado meeshii 2 miis 3 miis awalka oo la jirtay cabitaanadan oo kaleeto hadda waxa yaala ilaa 30-25 waxaad dareemaysaa marka in bishan Ramadaan programka baahida taagan looga faa'iideeyo dadka hawkaraas ka shaqeysta ahina aad iyo aad ay ugu qanacayaan maadaama ay helayaan macaamiil aad u badan oo intii hore customer aad uga badan ay helayaan waa tahay Cabdinuur Ramadaanta dad danyara oo aan afurka haysan oo sharaabkaas qudaarta shiidaysan aan gada karin jira dad ku yimaado aad caawisa ma jiraan oo afurka ka caawisa waa mahadsantahay sidaan dareemayna xilliga afurku soo dhow yahay kaleeto inta soo fariista meelaha afurka awoodin waxaan u sameynaa biyo qabow iyo timir si ay u helaan afurkii oo ayagu aysan wax lacag lagu cudrin marka waxaad dareemaysaa taasina hadda meeshii wax yaalaan inaad qofkii miskiin ku yimaado aad wax uga fududeyso waa muhiim waa aad iyo aad u soo dhaweynaa marka dadka waa ka caawisa aad iyo aad maadaama aan dadka isku nahay dabaqado ayaga laftirkoodu aysan kor wax u fiirinayno dareensan yihiin dadka shaqooyinkan haya inay yihiin dad isku dhiiriyay inay wax ka faa'iidaan ayaga laftirkoodana mararka qaar markay noo yimaadaan ku baraarujino inay sidaan oo kaleeto ay shaqo u abuuraan maadaama ay jiraan shirkado waaweyn iyo kambaniyo iyo hay'ado soo qaata barnaamijyo shaqo abuur inta badan dhalinyarada tahriibka iyo askareynta ku mashquulsan iyo fadhi ku dirka oo kaleeto loo sameyn karo businesskan oo kale kuna ilaabi karaan inay maaragtay meelo badan oo noloshooda u keenaya hanjab ay uga guuleysan karaan yoolkooda ayna higsan karaan meel aad u fiican sisin saytuun
halkaas baa waxaan gadaa average waa la diyaariyey $1 oo kale taa la gadaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ومahadsan yahay telefishinka qaranka iyo xogta uu raadinayo ku saabsan nolosha bulshada iyo sida loo nool yahay aadan uga hambalyeynayna runtii ramadaanku waa bil barwaaqo ah khayrkiisa iyo barwaaqadiisa ayuu wataa waliba ramadaankan wuxuu ku soo aaday xilli roob ah oo barwaaqo ah ما شاء الله بلد حريد ku jiraan ciidu qabowdahay hawadu qabowdahay ما شاء الله xoolihi dhaleen ilaahay aan uga mahad celinaynaa wax hadda isbedela oo weyn oo deegaanka saameeyay oo aan inta ka ahayn barwaaqada ilaahay uu keenay ma dareemayno hadda waa tahay sanadkan waa sanad barwaaqaha ku soo beegmay waa tiri Ramadaanta dhinaca kale marka Ramadaanta magaalo kasta Soomaaliya kamid ah qof dhiban ama qof gaajoon oo waxba haysan laga weymaayo dabcan magaaladana dad badan jooga oo aan tabar ahaan isku filnayn Ramadaanta iscaawinta magaalada dadka sidee bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadaanka iscaawintiisu hadda sidii hore Ramadaanada hore way ka duwan tahay Ramadaanada hore waxa jiray dad khayriyaad ah oo wax caawi jiray oo keeni jiray raashin qalalan oo ama kiishaad ama kiilada keeni jiray waxa jiray dad meelo ifdaar ku sameeya oo xarumo ifdaar ku sameeyo dadka masaakiinta oo waxba haysan afuriya Ramadaankan waxaan dareemaynaa intaas oo dhan waxba kama sanimaan dadkii raashimada keeni jiray wali nama soo gaarin hadda ma hayno dadkii xarumaha ifdaarka ku karin jiray oo imaan jiray ayakuna maynan karin waxba sanadkan maynan karin runtiina dadka aan waxba haysan oo kaamamka iyo xaafadaha iyo jooga oo ah dadkii ku soo barakacay abaartii sima ku soo barakacay oo magaalada ku nool dibna aanu laaban xoolo helin ma farayara oo haysan wax ku afduraan waliba waxa ugu badan dadka kaamamka jooga waxa marka sanadkan waxa tiri meel dadka lagu afuriyo ma jirto cadaado ayaguna ognahay hadda ka dhawaajisada in sanadihii hore xataa ka duwan yihiin dadku oo abaarihii iyo musiibooyin badan oo deegaanka dhacay ay dadka xoolaan dhigeen marka arintaas waa muhiim in dadka la caawiyo Ramadaanta degma ahaan kaalmaynka ka qaadanaysaan in la suuro geliyo hadda Ramadaanta in dadku ay istaagaan dadka gaajoon inay caawiyaan wallahi waa run ka degma ahaan annagu waxaan ka hadalnay meediyaha iyo meelaha meetingmanada la isku arko shirarka waan uga hadalnaa in la caawiyo iyo waliba culimaduna way ku soo qaateen khudbooyinka in dadka ifdaar loo sameeyo masaakiinta oo waxba awoodin aad iyo aad ayaa looga hadlay barnaamijkaas ilaa haddana maadaama ay yihiin dadka gobolkan ama goboladan dhexe ama degmadan cadaada khaasatan ku nool dad kharash ahaan waxa soo gala ay yar yihiin maynan samayn ilaa hadda meelo ama xarumo dadka lagu afuriyo aad iyo aadana loogu baahan yahay fariinta aan dirina waxa weeye qof kasta oo wax awooda oo muslim ah waxaan u sheegaynaa magaalada cadaado ifdaar inuusan ka socon ama raashin caadi ah oo qalalan ha ahaado ama ha ahaado raashin xarumo ama sektor lagu kariyo oo dadka loogu yeero oo ay qaataan oo guryahoodii u qaataan ku soo afuraan midna inuusan ka jirin cid kasta marka oo dadka muxsiniinta oo wax la baxa ganacsatada dadka khayriyaadka hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa dadka aad iyo aad ay u badan yihiin dadka aan afuri karin ee magaaladan jooga inay u gacan haatiyaan inay walaalahood wax siiyaan ilaahay wuxuu leeyahay tacaawanu cala albirri wattaqwa wanaaga iyo alla kacabsiga isku kaalmeeya maadaama bishaan tacaawunkeedu uu muhiim yahay oo birriga ugu weyn ay ka mid tahay waxaan ugu baaqaynaa dadka wax haysta oo muxsiniinta ilaahay wax siiyay ama hay'ad ha ahaadeen ama ganacsato ha ahaadeen ama dad wuxuu tasaduq ku sameysanayo la baxay ha ahaadeen inay u sameeyaan dadka walaalahooda dhibaataysan ifdaar ay u sameeyaan محمد كيمانتو أقبل نغا موتيستو إسلام كور ماتو اللهم صل وسلم على محمد يا حبيب الله محمد كيمانتو halkan aan joogno waxa weeye waa boostajada ay ka baxaan baabuurta tuulooyinka u qaada alaabaha ay ka baxaan magaalada Cadaado isla markaana magaalada keena caanaha iyo waxyaabaha la midka ah maadaama xilligan ay tahay xilli barwaaqo ah waxay magaalada keenaan caanaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha fara badan magaciisa dege waxa uu ka mid yahay wadayaasha baabuurta u baxa tuulooyinka ee magaalada Cadaado ka baxa
waxna soo geliya maxaa magaalada ka qaadaan horta magaalada dadkaan ka qaadnaa iyo raashimada iyo alaabahooda iyo waxyaalahaasaan ka qaadnaa tuulooyinkana caanaha iyo ariga iyo dadka ayaan ka soo qaadnaa waa xilligii ugu barwaaqada badnaa hadda aana soo maro aan aragnay markaan intii aan ka shaqaynaynay tuulooyinka iyo magaalooyinka beelada Cadaado intii 10 iyo dhowr sano waa ka shaqaynayn waa tahay taga xilliga Ramadaanka maxay uga duwan tahay xilliyada kale waxyaabaha soo qaadaysaan kale ama aad qaadaysaan waxay uga duwan tahay waqtiga qorraxda markii sano kale ay tahay oo soonqaadka tahay soonqaadku asagu la mid maahan beelada waxa weeye subaxii barqadii harkii la iska baxaa laakiin soonqaadku inta badan afurkii la baxaa oo dadku wada iska soomano maalintaas oo iska raadsan yihiin hadhowna markii xagga laga soo qaada waa sidoo kale waxa waaye waa ku haraadsan yihiin oo qofka asagoo oo manu soo galaya beledkii oo daalan uu imaanaya meeshii awal uu ka ahaa qof afuran uu ka ahaa marka kale imsa tuulo ama deegaan adiga aad tagtaa marka waxa deegaano badan aan tagnaa waxaan tagnaa Dhuumoodle Hogdugaag Dibira ilaa Xinjilab Miraxayley ilaa Huurshe aradaas oo dhan aan tagnaa ilaa Bado Dhogre waa tahay ka warran marka shaqada dhaqaaqa Ramadaanka badan waxa badan shaqada marka xilliyada kala shaqadu badan tahay Ramadaanka inta badan dadku miyiga waa isaga soomaan magaaladana waa ku soomaan qofku miyiga markuu joogo miyiga waliba sanadkan oo kale aad u barwaaqo u yahay oo miyiga qof kasta isaga soomaya oo meeshii soo ceertiisii caaniis isaga dhamaya laakiin mararka kale oo aysan soonqaadka ahayn shaqadu aad u badan tahay rakaabka dadka دائما شو شغل ما دبا حسن حسن أفريقيا مع وسام كوي ماذا ما شاء الله ما شاء الله سأل شيء ها سنت قفكي لا ها بدل ما أفريقيا ما يقر عبتان كان هذا يا أجدي ها سفيع hadda waxaan taaganahay mid kamid ah dhalinyarada magaalada Cadaado Xasan Kaniif waxaan weydiin doonaa jadwalkiisa Ramadaanka maxaa iska bedelay xilliyadii hore maadaama dhalinyarada shaqeyso oo ku jira waliba ugu maasantahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore u mahadcelinahay dhammaan shaqaalaha iyo wariyaasha iyo dhammaan TV qaranka maamulayaasheeda iyo bahda idaacadda qaranka Ramadaanka marka uu la gaaro wax kasta timekiisa waxa uu ka bedelaa aniga timekay waxaan ka bedelaa inaan shaqadii aan haysto ka safsac qaato oo aan yaado waxaan u baahnaa waqti inaan cibaadeysto oo aan familkii la qaybsado maartay Ramadaanka sidaad marka waxaan sameeyay jadwalkii waxa iska bedel inaan shaqadii intii aan hayay badana aan qaban jirin aan xog aan qaban jirin inaan mashaashka u bato inaan meelaha maartay hadda oo waxaan qarahay loo gato aan dadka galabta dadka ugu adeego inaan waxaan ku sheegay aan isku dayo markaas inaan markaan soo afur ka bacd tarawih tukado ka bacdina aan bulshada maartay magaalada joogta markaan aan soo tarawih ka bacdi aan la qaxway bal aan la wareysto aan la shahay haminkii waa tahay dad ma afurisa Xasan aad iyo aad gurigii waxa ka afurta ilaa 3 qofood oo waxaan ku horeeyay dadka isugu jira qaraabada kuwan qaraabo ahayn waana waxaan ku dhamaantood waxaan ugu talagalnay bisha marka Ramadaan la gaarnaan xaafadda ka afurna maadaama waxaan ku dhaanay aan baahnayn waxaan ku horeeyay waqtiga aan la qaybsado dadka waxaan ku horeeyay waxba haysan waa tahay dadka inay sacaawiyaan waxa la sheegay magaalada inay si jirin meelo goobo dadka lagu talagalay oo afur ku filan ay ka cunaan iyo isxur caadada inay salaan magaalooyin badan Soomaaliya waa leeyihiin arintaas waxay muujinaysaa in yartahay sacaawanaada bulshada arinta maxaa kale aad iyo aad ugu maasantahay runtii waa ka mahadcelinaya qiimaha iyo أورهدين إذا كان بس ساكنين العواي ورنتا ضدك عادو مركل جهلا ضدك الأفوري وحي كم يتعامل على وحنكر أيسكوب بدنا ضدك أنت قابل إسكوب على جواد أفرو أما قاب عيمة ضدك أفرو أم ساكنين أيسلهين لكن وحاجر قفك هديو باهي هاي أما إيش يعني ليتو قفك لو صاحب كيس أما قفك لو قرابة أما قفك لو وحنكر أي سقانان إنه كحيوة صورجل لكن كمان بدنا مجال ضدك الأفوريو وملك قاب ومرسان وكلام تلي ما ضدك الأفوريو هذا كوب بدنا مركل وحنديلها مجال
hadda waxaan dareemaynaa dadka masaakiinta inay sidii la rabay maartay ay soonqaadka uga faa'iideysan karin duruufo jira awgood marka waxaan talinayaa waxay tahay dadka masaakiinta la afuriyo si waxaan ku wari dadka annaga dhan waxaan ku wari aan uga faa'iideysano soonka inka masaakiinka waxba haysan la afuriyo kan waxaysa kan uu waxaysan u afuriyo kan aan waxaysan oo la afuro kan waxaysan هذا ما استطاع daawadayaal halkan aad taaganahay waa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Cadaado marka uu soo dhawaado waqtiga afarka markuu soo dhawaado waxa aalaba wadada laga dareemaa mashquul aad u fara badan baabuurta ayaa isku xayiranta maadaama dadku ay soo kacaan intooda badan xilliyada galika dambe sida arkaysaanba wadooyinka waa mashquul xilligan oo kale afarkii waxa ka dhiman muddo nus saac ah wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka aan ku eegaynay magaalada Cadaado iyo Rabadaanka sida looga nool yahay haddana waxaan la taaganahay waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xeele oo aan ka wareysan doono bal degmadu maamulka degmadu muxuu sameeyaa bisha Rabadaan oo ku soo kordhiya shaqada degmada bismillaahir rahmaanir rahiim aad ma santiin baa saxaafadana soo dhaweynayna bisha Ramadaan degmada Cadaado ummadda waxay ugu tala gashay wacyigelin in mataqaanaa ummadda la wacyigeliyo in dadka masaakiinta la kaalmeeyo in mataqaanaa dadka safarada dheer ku yimid oo dhibaatooyinka kala yimideen dhinaca shabaabka iyo xaggooda kala yimaadaan in la kaalmeeyo oo wax la qabto dadka aan hooyo karin oo afurada heli karin afurada in la siiyo dhammaan intaasoo wacyigelin ayaan mataqaanaa ka qayb qaadanaa ummadda si ay isu gargaaraan maadaama ummadda reer Cadaadana tahay ummad aad isu gargaarta oo aad isku jecel ay yihiin misna waxa hay'adaha laftooda oo islaamka iyo hay'adaha mataqaanaa waxta kule laftooda xilliga Ramadaanku waa xilli aad u culus wuxuu loo baahan yahay in gargaar loo keeno oo si Ramadaanka ay dadka uga qayb qaataan masaakiinta iyo dadka dhibaataysan waata gudoomiye degmada ma jiraan goobo loogu talagalay dadka lagu afuriyo oo afurkii suxurta lagu sameeyo laakiin qof soo afuriyo ama dad si gaar ah wala bax guriga soo wala bax marka laga soo tago meel gaar ah oo degmaduna og tahay oo dadka lagu afuriyo ma jirto hay'adaha islaamka horta aad waxaan uga codsanaynaa inay dadka masaakiinta sidii ay ku afur lahaayeen ay u diyaar garoobaan oo maadaama mataqaanaa dad hadda ayaga naga hanti badan ay yihiin oo dalkeenuna oo yahay la dheela dhacaya dawlad la'aan iyo waliba reer galmudug haddana wali waxba noo dheeriyay waxa noo sii dheeriyay mataqaanaa dawlad la'aan noo dheeriyay maadaama dawlad la'aan is qabsi aan dhaxdayna ay ka jireen oo ay jirto oo cid u maqan aan la arag dawladaha islaamka aadan ugu codsanaynaa hay'adihii oo sanadkii dhawaa mataqaanaa hay'ado badan afur jiray laakiin sanadkan wali lama soo gaarin hay'ado wax afurina ma soo gaarin كل سبب هذا وحكينا يا هذا قياسية دولتي اللي قصر يدي وقل مدق ومضى أقل العملها هذا وحي كجور تابع منطقة إسكار ما تسقفسي سياسات أو بلوتيكال كريسة بجربة مركا ومضي وابله الماما بلوت كذي بلا رعاية مركا تعال سببتين ضدكي الأفريجري أفريقي ويان مركا تعال سبب لكن حكينا عن وعصرنا إن ذا عدد ضد كذا رقالها هستا إن ضمان بطقنا لسود قاضو وسود أفرنو وإن باهبة أو قبل بس إسلاميات أنا قعدت إذا وحورنا وقع إمامبا أساسا رجينا إن شاء الله نول با dariska iyo guryaha iyo hadda dhinacyadaas waa iska qodanaa xagga masaakiinta guryaha soo geynaa laakiin bara hadda ayaman oo dadka lagu qodimada ahaan horta waxaan u marinaa hay'adaha samafalka oo dhan inay qayb weyn ka qaataan mataqaanaa xilliga soonka oo dadku badi xilliga ay ugu liitaan oo yahay oo maanta dhan ay sooman yihiin oo qoftii sooman maanta dhan ay u baahan tahay afur waana mid kaliya oo wanaaga badan oo xilliyada sadaqada la baxana oo anay kamid tahay weliba hay'adaha islaamkan aad ugu socodsanayna ma doonayo maanta inaan maya ma doonayo xagga mataqaanaa hay'adaha kale inaan maanta aan iraahdo hal afuriyaan afur hay'adaha islaamka ee dadka islaamkan ka codsanayna inay dadka afuriyaan dadka masaakiinta ugu waxayaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan ku eegaynay Ramadaanka iyo magaalada Cadaado oo ka mid ahaa barnaamijyada ka baxa telefishinka iyo raadiyaha qaranka Soomaaliya xilliyada bisha Ramadaan lagu guda jiro barnaamijka waxa soo jeedinay anigu Cabdi Xasan waxa dhanka kaamirada iga caawinayay Xasan Cali Nadaara tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabadgelyo وسلم على محمد يا حبيب الله
محمد يا حبيب الله